hoyga tababarka injineerada mustaqbalka ka baro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kasta adoo booqanaya hurbad.com igida cayaartilibaac hurbad.com waa taqaanaa website-ka taariikhdu waa maguurte maskaxdii fiyowba ka macaashta waayaha maxaa yeelay wax walbo dunidan tiknoolajiyada hoyaala ama wax walbo bini aadamku soo alifo waxay soo mareen taariikh aad u baahan tahay inaad wax ka og tahay si aad u ogaato maanta meeshay marayso iyo heerka ay soo martay taariikh yaroo kooban ayaan baranaynaa kombiyuutarka ka hor maxay dadku wax ku xisaabsan jireen sida aad og tahay kelmadda la yidhaahdo compute waa wax in la xisaabiyo to compute to calculate ay la mid tahay marka kombiyuutarku asalkiisu wuxuu ka yimid waa xisaab waa mathematical formula iyo algorithms la isku daray ee markaa kadib electronic loo bedelay iyadoo la isticmaalayo science iyo physics markaa kadibna oo soo baxay aaladan aad arkayso electronic ah balse maxay soo martay ilaahay amarkiis marka badanaa dadku markay maqlaan computer waxay isleeyihiin waa shaashad iyo keyboard iyo mouse qalab leh hase yeeshee kumanaan kunoo sano ka hor waxaa jiri jiray aalado dadku ay wax ku xisaabsadaan sida ayagoo isticmaalaya farahooda oo kale markii laga hadlo waxyaabihii la isticmaali jiray bilowgii hore waxay ka mid ahayd dadku inta aan waxbarashadan caadiga ah ee iskuulada loo aadayo luqadaha xisaabaha la baranayo intay soo bixin dadka waaweyn ama dadka caqliga leh ama dadka markaa wax yaqaana ayaa ilmaha iyo caruurta iyo dadka aan waxba aan qori karin waxna akhri karin ee loo yaqaano illiterate-ka waxay ku bari jireen wax faraha bini aadamku marka farahu isticmaali jiray ee 10 farood marka 10 farood waxaa loo yaqaanaa 10 digits ama waa 10 far digit waxay ka timid Latin waaye oo waxay ka timid digitusna waxaa laga wadaa luqadda haddii Ingiriis laga dhigo Latinka waa far marka farahan 10ka ah eber ilaa iyo 9 ayay ku dhamaataa xisaabtaasna sidaad og tahay waa xisaabta loo yaqaano base 10ka ee maalin walba wax ku xisaabsano wax ku kala jarano waxna aan ku kala qaybsano xisaabtaas ayaa loo yaqaanaa 10 digits marka xisaabtaas ayaa dadku isticmaali jireen kumanaan kunoo sano ka hor marka romaniska nimanka la dhihi jiray haddaan taariikhda dib u raacno ayaa soo alifay marka ayadoo la isticmaalayo 10 farood in la xisaabi karo ilaa 100 la dhihi karo multiples of 10 oo kale in la dhihi karo 10 20 30 40 50 60 70 80 90 iyo 100 multiples of 10 marka digit meeshaas ayay ka timid oo ah far counting numbers ee ah in wax la xisaabiyo kombiyuutaradu waxay isticmaalaan digits ama number ah eber iyo hal si ay u soo bandhigaan lambarada ay u isticmaalayaan marka systemka oo isticmaala kombiyuutarka waxaa loo yaqaanaa binary system ama base 2 waa xisaab ka kooban kombiyuutarka xisaabtiisu laba lambar kaliya waa eber iyo hal oo loo yaqaano binary taasoo ku salaysan multiples of 2 waxaa leedahay 2 to the power of 2 waa 4 2 to the power of 4 waa 16 2 to the power of 16 waa 32 marka 2 to the power macnaheedu waxa way shay walba laba mar isku dhufo waay meeshaas ka timid marka binary ayaa loo yaqaanaa kombiyuutarku xisaabta u isticmaalaa waa eber iyo hal base 2 xisaab la yiraahdo waaye ee magaceeda loo yaqaano binary marka zero conceptiga la yiraahdo xagow ka yimid kelmadda la dhaho zero waxa bilaabay nimanka la yiraahdo hindida oo waxay ku isticmaaleen oo waxay noqdeen dadkii koowaad ee runtii qora marka dad kamid ah hindida oo dadkii horaan ka hadlaya kumanaan kunoo sano ka hor ayaa waxay qoreen manuscript ee ah waxyaabo la qorayo waxyaabahaasna waxaa ka mid ahay zero marka kelmaddii koowaad oo zero saan qof u qora marka zeradu waxay ka timid hindiya waliba waxay soo muuqatay qarnigii 5aad oo hadda waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad ilaahay amarkiis bal u fiirso xisaabtan eberta la yiraahdaa waxay soo baxday qarnigii 5aad smash the likes libaax haddaa qaybtaan ka heshay rugta hurbad haddaadan rukun ka ahayna riix gambaleelka riix subscribe-ka si wax walboon ku soo ridno ay kugu soo rucleeyaan youtube-keenna yaan lagaa hor daawan linki-inka nagala soco facebook-geenna fariin noogu reeb twitterkeenna ku tixnaaw instagram-kana naga indee hoyga tababarka injineerada mustaqbalka booqo hurbad.com mahadsanid mudane ama marwo